بسم الله الرحمن الرحيم. qaybtan waa qaybta farad ayadana waxaan ku arki doonaa wordkii ayaan soo sheegayna muxuu yahay. marka ms word ms maxaa lagu soo gaabiye Microsoft. Yes, Microsoft word muxuu yahay marka asagana halkan ka eeg contentiska marka oo wordka ku bari doonto waxa uu ka kooban yahay waa kan how to write a document. saawro sheegnaba ms word waxa uu quseeyaa dokumentiyada sida loo qoro heerarkooda kala duwan. how to write a cv letter. cv letter waxa waaye qofka ardayga ah markii uu rabo inuu shaqo codsado waxa uu soo qortaa cv. cv-gaas yani sidee u qoreysaa meesha lagu qorto waxa waaye word ms word. qodobka xigo timetable. timetable waa maxay? timetable waa jadwal xisas jadwalkan waxa hartu bixi jadwalada sida loo create gareeyaa waxyaabaa ku baran doona kamid tahay iyadana ms wordka. maxaa kugu xigo word artist. word artist maxaa la word artist waa waaye tusaale Soomaaliya AVC Plus oo kale taa dukaamada hortooda maxaa ku qoran far waaweyn numberkii dukaanka magaciisi AVC numberkii number labaad haddii uu jiro marka waxyaabahaas oo kaleeta iyo adiga artist aan lahaa invitation letter oo kaleeta markii aad rabtid inaad xaflad aroos oo kaleeta markii loo sameeyo invitations waxaas oo dhan artistka lagu qoraa word artistka lagu qoraa. marka qodobka xiga waxa waaye asagana how to set the password. macnaha dukumentiga lacala qoratay dukumentigaas marka xog muhiim ah kugu jirto in laga arkaa diidantahay sidee marka password ugu xireysaa waa ku baran doonaa asagana. qodobka kaleeto portrait and landscape. portrait and landscape maxaa la lahaa markan tusaale warqadaha markii la qorayo dukumentigan qoraynaan ahan dukumentigu marka wuxuu u qaybsamaa labo qaybna portrait aanay u qoran tahay qaybna waxay u qoran tahay landscape. ay maxaa la lahaa marka jalci waxaa la lahaa qaybna joogjoog ay u qoran tahay qaybna jiif ay u qoran tahay. warqada sidaa ogsoonahay markay stag u qoran tahay waxaa la lahaa portrait form markay jiif u qoran tahayna landscape form aa lahaa. marka sidee uu qoraysaa tusaale xafiisaa joogtaa marka qofa booskaaga wuxuu ku warqad id buu ku dhahay warqad qor ku dhahay warqada ku soo taagay warqada waa inaad iska fiirisaa formka u qoran tahay ma portrait formka u qoran tahay mise landscape formka u qoran tahay muhiimkan iyadana muhiim waaye. tusaale marka shahaadooyinka kaleeta badana waxaa lagu qoraa landscape form lagu qoraa maadaama ay waasac tahay babalaar ay tahay jijiif. qodobka xiga printing. printing waxa waaye sida loo daabaco printing de haddii wax la qoro maxaa ku xigo in wax la daabaco. maxaa la daabacaa wixii aa qoratay aa la daabacaa heerar kala duwan. printigu marka ilaa 3 wey camal oo maraa in waxaa qoratan mar aad daabacatid inaad daabacatid yacni meesha hal page keliya u baahan tahay amba aad daabacatid wax specific qaar intaas iyo daawac intaas iyo reeb. tusaale 30 page camal aa qoratay 30 page marka waxaa u baahan tahay qaar u baahan tahay qaar uma baanin. waxaas oo dhan printerkii in la baro computerka iyo printerka la baro marka printerka sida loo soo lagti gareeyay asana printerka waxa waa asagana concept fiican oo documenti wordka uu isticmaalo asagana. marka intaan oo weerarka waxa intaan iyo in ka sii badan ayaa hoos timaado wordka waanu ku baran doonaa ayagana one by one hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo. fadlan la soco qaybta xigto.